السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rajaynayaa inaan kulligiina caafimaad qabtaan walaalaha igala socdo bartaani waxaan aad ugu faraxsanahay inaan idinku bishaaray inaan dib u furnay isdiiwaangelinta dufcadda labaad ee dibloomada luqadda Ingiriisiga. Dibloomadaani waxa ay ka kooban tahay ilaa 7 kooras. Kooraska koowaad waxaan ardayga aan ka dhisaynaa asaaskiisa, midna waxaan kaga dhisaynaa naxwaha anagoo u diyaarinay hab fudud oo casri ah aan horey loo arag oo ardayga u fududeynaysa in si degdeg ah uu u fahmo xogta loo soo gudbinayo. waxaan gadaal ka dhigaynaa am is or haddii aan hayno jumlad ama tix dhehaysa I am happy micnaheeda waan faraxsanahay waxaan rabnaa inaan diidmo u bedelno oo ah ma faraxsani. Okay, ereyga not ayaa waxaan dhigaynaa am gadaasheeda waxaa la dhahayaa I am not happy. I am not happy. I am not happy. Tusaalaha xiga midda xigtana waxaan xoogga ku saaraynaa akhriska iyadoo aan adeegsan doono hab fudud oo ardayga ka caawin doonta inuu macalinka la jaan qaado. This is a photo of Ahmed and Halima from Mogadishu, Somalia. Haye isdiyaari waa markaadii 5 ilbiriqsi ayaan ku siin. Kooraska xigana waa ku hadalka anagoo u diyaarinay wada sheekaysi faa'iido leh. sidoo kale habkan u diyaarinay waa hab ardayga ka hadalsiinaysa uusan noqon doonin mid kaliya daawada ah waxayna sare u qaadi doontaa heerkiisa ku hadalka afka Ingiriisiga waa haddii uu juhdi bixiyo. Miss Fawzia, what do you do for work? I'm a doctor. Oh, where do you work? Gargaar Hospital in Mogadishu City. What do you do? sidoo kale waxaa la socda koorsooyinkaasi kooras aad ku baran doontid dhawaaqa saxda ah ee xarfaha Ingiriisiga. Arrintaasina waxaan u xil saarnay macallin u gooni ah oo aqoonteedana leh. U samayso afkaaga in yar fur faruurahaaga kala jiid oo si ballaaran u kala bixi bartamaha carabkaaga kor u qaad oo ku riix xagga hore ee afkaaga. Fooda hore ee carabkaaga waa inaad hoos u dhigtaa oo uu ku aado ilkahaaga hoose gadaashooda. waxaad xusuusnaataa dhawaaqa shaqalka A waa la adkaynayaa ama waa la shidayaa sidaa daraaddeed faruurahaagi waa inay si adag u kala baxaan. sidoo kale diblomadan waxaa la socdo kooras kaliya aan ugu talagalnay dhegeysiga waana xirfad uu qofka ku horumarin karo barashada luqadaani kuna gali karo jawigiisa. Waxaa loogu dhawaaqayaa it's little waxaa loogu dhawaaqayaa sida tan little da iyo dha ayaa meesha ku qarsan waxaa la dhahaa T-flaps little it's a little windy and cold aan u gudubna tusaale kale iyadoona uu jiro kooras ziyaado ah aan isugu geynay farsamooyin waxbarasho oo sare u qaadaysa aqoontaada hab isticmaalka tiknoolajiyadda waxbarashada caalamka. sidoo kale waxaan kuu diyaarinay buugyare qorshe maalmeed ah oo aad ku tatbiiqin kartid casharadaada aana ku dabageli kartid iyo heerka aad markaasi aad maraysid. waxaana u adeegsanay naqshadeynta kooraskani qalabyo iyo farsamooyin casri ah oo aan horey loo arag. habkan wax kuu baraynana waa hab uu macalinka kula soconayo oo waqti walba su'aal weydiin kartid. sidoo kale cashar walba markaad dhamaysid waxaa jiri doono imtixaan aad geli doontid. sidoo kale toddobaad walba waxaa ku imtixaani doontaa casharada toddobaadkaasi aad qaadatay. habkan u naqshadeynay kooraskani waa hab cusub oo ardayga u suurtagelinayso una fududeynaysa garashada ama fahanka casharka ee kaliya ma ahan mid daawasho ee waa mid ardayga lagu khasbayo inuu casharka la falgalo. waxaana dadaal badan gelinay in casharadeena ay noqdaan kuwo fudud aanan lagu caajisaynin. macallimiintan waxay ku dadaalayaan hab fudud oo kooban inay xogta kugu soo gudbiyaan iyadoon waqti badan laga lumin. si aad u xaqiiqsato hadalkeeda linkiga hoose ka eg feedback ardaydeena waxa ay ka dhaheen diblomadani. mar kale aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kugu soo dhaweeyo madasha Afooge. waxaana rajaynayaa inaad ka heli doontid waxbarasho tayo sare leh waqtina la geliyay iyo macallimiin aqoon u leh
waxa ay ku barayaan waqti walbana heegan ku ah inay ku sharxaan wixii mugdi kaaga jira. Waxa xusud mudan ardayda aan qaadanayno iyo waqtiga isdiiwaangelinta way xadidan tahay. xajiso kursigaada intaanan laga buuxin. wixii faahfaahin dheeri ah waxa la xiriir kartaan nambarka hoose inta kaaga muuqda. waxaan idin rajaynayaa waxbarasho faa'iido leh. mahadsanid.